إلهي وحو دا متقانين الطيبون للطيبات قف والبا قف كيسو هليا nin odayahoo geeljire ahaa ayaa wuxuu dhageystay wadaad xadiisaya oo leh 4 jiho ee waaweyn midna kaadida loolama jeesan karo geeliisii ayuu iskaga laabtay iyo 4 inana uu dhalay inamadii buu uga sheekeeyay wuxuu yidhi war diintu ma ogola in 4 jiho midna kaadida loola jeesto maxaa xala baa leeyahay de xagga sarun baa inoo fureen aynu kor u jeedino bahasha isagii iyo 4 inan shantoodiba kor bay u kaajeen dabadeedna wixii baa ku soo noqday oo isla wasaqoobay dadkii baa u yimi waxa la yiri warso idinka nimanka waaweyn maxaa idinku dhacay waxay noocaan odaygii baa jawaabay wuxuu yiri warni waxba garan mayno duul culimo qastay ayaan wadaadkii buu jeeday duul culimo qastay baan waxaan uga socdaa war dhalinyarada iyadii TikTok wax soo gelin jirtay waxaanu noqonay duul canab qastay marweyna wacdiyeysa oo waxa leedahay ruuxan waa adduunyo waa laga tagayaa ha laga sahay qaato oo si fiican bay noo wacdiyeysa ayada quraana bay noo soo daliishanaysaa sida ay iminka maqlaysay markaan nahno iminkay hagaagtay oo 40 yoom ma baxdeen oo tabliiqin iska raacdeen 40 cisho tabliiqin aan raacday ay naga go'an tahay ayuun baad maqlaysaa walaga garbaxaya iyo qayladhan waa wareeg maxaa soo kordhay baad leedahay heesaa marka la maqlo dhigta la taaga maxayna ku soo kordhay dadna waxa lagu leeyahay wartii canab ahayd baa kiliib khaldan soo gelisay sadaraadeed baa heestan loo dul saaray waxa la canabi deedinaada dhinacuun isugu lugato marna wadna wacdiyeysaa marna wad walhinaysaa marna waa wacdiyeyaa marna waa walhinayaa walee aakhiro wareer ka dhic buu yiri ninka waxaan leeyahay canabi dhinacuun isugu lugato annagina wareerisay dadkina waa yaaban yihiin ودي سلام يا صاحبي لايك تي فلودين هلو